Asalaamu calaykum saaxiibayaal soo dhawaada magacaygu waa Salman Asadka maanta waxaan la wadaagi doonaa laba qodob oo ka dhigaya in dadku ay ku jeclaadaan asxaabtaada ama qaraabadaada. Qodobka koobaad, caado ka dhigo inaad dadka hambaliyeyso marka ay wax fiican u soo kordhaan, ama aad la hadasho oo aad la dareen noqoto marka ay dhibaato qabsato. Haddii uu qof guursado ama ilmo u dhasho, waxa waajib kugu ah inaad hambaliyeyso. Hambalyeyntu waxay noqon kartaa adoo telefoon ama email ama warqad u dira, amaba adigoo u taga qofka oo u sheega hambalyeynta. Haddii ay dhibaato la soo kulanto sida tacsiyo oo kale, iyana waxaa muhiim kugu ah inaad la hadasho oo aad u tacsiyeyso qofkaas adigoo la damqanaya. Qodobka labaad, caado ka dhiga inaad la xiriirto asxaabtaada xilli kasta oo aad kala maqan tihiin. Salaan u dir, xataa haddii aanay jirin wax cusub oo soo kordhay. Aad ba mahadsantahay saaxiibayaal. Subscribe saar.